Qoriismariskan waxaa lagu magacaabaa liqaaye. Waa qoriismaris aad u khatar ah oo qofka uu ugaarsanayo si xirfadaysan u ugaarsada. Dadku waxay u maleynayaan inayna meeshan cidba ku noolin. Ma ogeyn inuu liqaaye ku nool yahay saaxiib, aniga liqaaye la yiraahdaa liqaaye. Islaantan yar ee halkan ka muuqataana waa islaantii odayga warmooge. Waxay iska dhex socotaa kaynta iyadoona waxba ogeyn. Ileen odaygeygaba warmooga ahaaye. dadku waxay u maleynayaan inay kayntan ku nool yihiin xayawaano aad u khatar oo dadka cuna, laakiin anigii odaygayga warmooge waxaa ma aaminsani. Waartee tan maanta way ka soo dhamaatay. Ma oran inuu liqaayo xaggan ugu daba dhuumanayo. Islaantii warmooge waa iska soo xaragoonaysaa halka uu liqaayana ugu daba dhuumanayo geedka oo uu sugayo waqtiga ugu munaasibsan ee uu liqi lahaa gebigeegaba. Odaygii liqaaye waa uu diyaar galoobay, waxaana uu sugayaa waqtigii uu ku boodi lahaa islaanta. liqaayow xaashi madax qudrada joogaana saaxiib waxba liqin haddaad waxba liqdid. liqaaye waxay saaxiiba yihiin qoriismaris kale oo lagu magacaabo xaaji madax qudrad. xaaji madax qudrad badanka waxa uu xaasidaa saaxiibkii liqaaye sababta oo ah isagu ma cuno hilibka. artiis laan adkay ka baxdaniyo way soo absaantay meelahaas lagu cunay. odaygii warmooge waxa uu sugayay islaantiisii inta ay suuqa ka soo noqonayso. artuun ku taalagay maxay la maqan tahay miyaw ilaa goormay suuqa ku maqan tahay. marka uu gurigii ku dhex gaajooday ayuu iskaga soo baxay sida uu soo doontoonay islaantiisii. arwaadan islaantii waa layd markii soo absaantay bay iska imanaysaa xilligay doonto. alla warmooge waan habsaamay, waxaan iskaga soo dhex raaxaysan anigoona ayar iska soo dhex socday kayntii. dadku way waasheen wallaahi bilayda, waxay aaminsan inay kaynta wax ku dhex nool yihiin. habeenkaasaan iska soo dhex socday waxbana ma arag anigu tahay. laakiin dad way waaliyihiin waxay moodayaan meesha wax dad ku dhex nool yihiin. annaga maaliga soo dhex marnatay u sheeg waxaan ma fahmayn dadkan. alla way waaliyihiin, anna waa arrimiga gurigaan iska dhex geli baray. hore u soo noqo bal xagad ka taa. waa suuqaasaan soo gelinaayadu bal guriga sii gal. warmooge iyo islaantiisu waxay iska dhaadhiciyeen inayna kaynta waxba ku noolayn, laakiinse ma ogo inuu xaasid madax qudrad maanta ka badbaadiyey liqaaye. alla waan daalay maanta wallaahi bilayda, waan hore u soo noqo. aadu iska sii seexaa naga xiriina dooneed mananadna xaqadan sii seexaadu. odaygii warmooge waxa uu islaantiisii kaga tegay guriga, laakiinse ma ogo inuu odaygii liqaaye daba socdo islaantiisa si uu u ugaarsado. intay maanta oo dhan maqneed bay ku leedahay hore u soo dhaqso xilligaan doonaa imaan ayada maxaa ka kale. odaygii warmooge markuu gurigii ka dheeraaday, odaygii liqaaye oo islaanta daba socday ayaa ugaadhsigiisii isbilowday. si uu ugaarsaday islaanta ayuu soo daba kacay. odaygii warmooge gurigii uu ka tegay imika tan mar bay badbaaday ma mar labaad bay badbaadi. wallee waana badbaadin haddaan gebigeegaba ku liqi waayey. liqaayaa laga cararaya guri liqaaye. odaygii liqaaye waxa uu yimid islaantiisa inuu cuno. waxa uu hor joogaa gurigeega waxaana uu doonayaa inuu albaabka ku garaaco. wallee tan maanta way ka soo dhammaatay, imikan albaabka ku garaacay ayaygu daba gebigeega baasan cuni waayey. qoriismariskii liqaaye waxa uu islaantii ku garaacay gurigii. markay gurigii ka furtayna uu liqayba gebigeega.